gabar la sheekaysanayay saaxiibtay meeshan uu imaaday yaa walaale gabadhii anagoo sheekada meel macaan oo macquul ay noo marayso marna kuma uusan fikiraynin in sidan ay wax u dhacayaan oo dhismahan duqa ah uu u dumayo haddana waa qadar alle daqiiqado ka hor ayuu halkan u yimid inuu kula haasaawo gacalisadiisa oo ay khadka taleefanka ka wada hadleen halkanna lagu ballamiyey iswaraysi daqiiqado ka hor iyo wada joogista isagaiyo gacalisadiisa oo sheeke kaftameed dhanka nolosha dhex martay ayay doorbiday in ay biyo qabow u doonto lamaanaheeda si uusan u dareemin wax oon ah balse daqiiqadihii ay maqnayd ayaa alla wuxuu qadaray in dhismaha duqa ah ee Botero ayaa soo dumay waxa uu ku habsaday dhowr qof oo ka hoos jiray dhismahaasi ka hor inta uusan burburin dadka deegaanka ayaa ka warhelay dhawaqa burburka dhismahaasi waxaa soo degdegay kooxaha badbaadada ee debdemiska kuwaasoo durbo bilaabay in ay dhagxaantii soo burburay iyo dhismahaba ay qodaan waxaa lagu guulaystay in dhowr qofood halkaasi laga soo badbaadiyo oo dhaawacyo kala duwan ka muuqanayay wiilka jacaylka u yimid halkan waxa uu ka mid noqday dadka nasiibka alle uu u siiyey in laga soo badbaadiyo dhagxaantii burburka ee dhismaha duqa ah ee ku dul habsaday si gaara ayuu ula hadlay telefishinka dalsan isagoo qayb ka mida jirkiisa uu aasan yahay burburka dhagxaanta waxa uu u mahadceliyey alla subxaana wa tacaala iyo kooxaha badbaadada ee debdemiska oo dadaalkoodu uu halkaa ka muuqday gabar la sheekaysanayay saaxiibtay meeshan uu imaaday yaa walaale gabadhii anagoo sheekada meel macaan oo macquul ay noo marayso waxay dhahday biyo aan ku soo qaadayaa walaalkeeyo wax yar iisu ayadoo biyihii ku maqan sheekadana ka warhelnay saaxiib hadda adiga qayba ka tuunta Soomaaliya soo fogaya waa li soo fogaya walaalay Soomaaliyeed bay soo fogayo emergency degdeg ah gurmadka Soomaaliyeed yaa debdemiska xilligan warna kama hayayo wacaaltoona gacalisadiisa balse waxa ugu wardambeysay iyadoo u doontay biyo qabow oo ay islahayd gacaliyahaaga ugu laab qabowji حسن صلاة حسن لكي راضي هي تلفزيونka dalsan Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier